marka ugu horeysa bahda warbaahinta laga soo qayb galay shirkan jaraa'id ee galabta. Shirkan jaraa'id ee galabta waxaan rabaa in shacabka Soomaaliyeed meel kasta dunida ka joogaan dalka gudihiisa iyo dibaddiisaba iyo magaaladana aan kula wadaago saddexdaa markaan dhameeyo sidii caadada inoo ahayd su-aaluhuna way inoo furan yihiin ilaa aynu su-aalaha ka dheregtaanna halkan kama tegno. intaa kadib saddexda arrimoodaan ka hadlayana idin sheegaya. kow, waamo cusub oo ka soo baxay arrimihii COVID-19-ka. labo, arrinta doorashada iyo shirka dhici doona ee madaxda dowladda federaalka iyo madaxda dowladaha xubnaha ka dowladda federaalka ee dhawaan furmi doona iyo halka qabanqaabadiisi marayso, iyo qodobka saddexaad oo ah kiiskii badda ee ka socday maxkamadda cadaaladda dunida ee Hague iyo ilaa hadda sidii procedure-ka iyo wakiishada soo gabagaboobay idinkana aan idinka yara brief garayaan. haddaan ku horeeyo go'aamada ka soo baxay xukuumadda federaalka Soomaaliya gaar ahaan guddida qaabilsan arrimaha coronavirus ee COVID-19 markii aan dhegaysanay khubarada iyo aqoon-yahanka iyo sayniska iyo dhakhaatiirta iyo wasaaradda caafimaadka, intuba waxa ay sheegeen inkastoo aada loo dadaalay, aada loo shaqeeyey, lagu dadaalay afxirka iyo kala fogaanta iyo wasaaradihii iyo hay-adihii dowladda fasax galay iyo iskuulladii iyo jaamacadihii iyo madrasadihii go'aamadii hore qaatay, haddana in khatartii coronavirus u leeyahay. haddii khatartii weli jirto macnaheedu waxa weeye inaynaan odhan karin intaan 3 usbuuc dalka xidhnay haddana ha isu soo baxo dabadeedna xanuunkii mar labaad uu dib u soo laabto. sidaa darteed dowladdu waxay xoojinaysaa go'aamadii hore uga soo baxay 2 Maarso 3 Maarso ee ahaa in lagu dhaqmo si loo badbaadiyo shacabka Soomaaliyeed. waa waqtigii sida uu inoo saameeyey hadday caasimadda tahay iyo hadday isteedyada tahayba sida uu inoo saameeyey corona. waxaan rabnaa in lagu dhaqmo go'aamadii hore ee ahaa in la kala fogaado, ahaa in la kala durko, ahaa in afka la xidho, ahaa in qof waliba halkiisa xil isku saaro. goobaha shaqadu sidii bay sii ahaan doonaan, hay-adaha dowladda iyo wasaaradaha iyo goobaha la isugu yimaado sidoodii bay usii ahaan doonaan, ay kusii jiri doonaan fasax 2 usbuuc. sidoo kale waxaa la rabaa waxayna soo gaaray tallaalkii iskuullada iyo jaamacadaha iyo madrasadaha macallimiintooda saddexdaba waxaa la farayaa 2 usbuuc inay isku tallaalaan iyagoo iska tallaali doona isteedyada iyo 17 degmo ee gobolka Banaadir. waxaa la diyaariyey gobolka Banaadir oo keliya 90 meelood oo tallaalku ka socdo 2 usbuuc in la isku tallaalo si loo badbaadiyo nafo badan oo aynu jecel lahayn oo aynaan rabin inay culimada waxaa mar kale lagu celinayaa masaajidadu inay u hoggaansamaan awaamirta dowladda, kala fogaanta, afsaarka, weyse qaadashada oo qof walba gurigiisa kusoo weyse qaadanayo in la ilaaliyo. salluu birrixaalikum si nafa loo badbaadiyo dadku in ay kala fogaan ku tukadaan, haddii ay lagama maarmaan noqotana guryahooda ku tukadaan. in ciidamada amnigu ay gutaan waajibaadkooda oo ay fuliyaan awaamirta ka soo baxday xukuumadda, ciddii u hoggaansami weydana ay tallaabo sharciya. ciidamada amniga waxaa la farayaa in ay go'aamada fulintooda iyagu xil saareen. waan adkaynaynaa sababtoo ah waxaan rabnaa in xanuunkii oo weli inagu dhex jira in aynu xakamayno oo aan yarayno oo sida aynagu dhaafin lahayn. sidaa darteed si aan uga gudubno waa inaan adkaysano 2 usbuuc. dhammaan wasaaradaha ay khusayso arrimahan waxaa la farayaa iyaguna inay qaybahooda ka fuliyaan, hadday isteedyada tahay iyo hadday gobolka Banaadir tahay iyo hadday wasaaradaha federaalka tahay. hoteelada, maqaaxiyaha, madrasadaha, jaamacadaha
garoomada diyaaradda shirkadaha brifatka ah dhammaantood waxaa la faraya iyaguna inay ilaaliyaan kala fogaanta iyo inay dadku guryahooda kusoo shaqeeyaan. intaasi waa go'aamada COVID-19 waxaanu rajayn doonaa in loo hoggaansamo 2 usbuuc insha Allah. waxaan rajaynaynaa 2 usbuuc kadib wax badan inoo fududaan doonaan inagana fududaan doonaan xanuunkuna sidii dabaysha uu ina dhaafi doono ilaahayna. intaa kadib waxaan u gudbayaa qodobka labaad si aan u soo koobo oo ay su-aaluhu inoogu fududaan. qodobka labaad waxa weeye doorashada. madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya xalayto waxa uu soo saaray casuumad uu ku casuumayo madaxda dowladaha xubnaha ka dowladda federaalka in la isugu yimaado shir 22-ka bisha Maarso oo ku beegan Isniinta. shirku wuxuu ka dhici doonaa Afisiyoni Center, xarunta Afisiyoni oo ay leeyihiin ciidamada qaranka Soomaaliya. xarunta Afisiyoni Center ayaa loo diyaariyey waxaana hawsha qabanqaabadeeda iyo diyaarinteeda ku howlan xafiiska ra'iisul wasaaraha. waxaan rajaynaynaa inaan dalkani oo inoo ajenda noqon doonta 3 kelmadood oo ah doorasho doorasho doorasho. waxaan runtii aad uga xunnahay iyadoo dalku doorasho aadayo in siyaasiyiinta qaar ay ku mashquulaan inay sameeyaan isbahaysiyadaas oo ah doorasho la dir. isbahaysiyada doorasho la dagaalanka ama doorasho diidkaahi waxay inagu celinayaan jid qaldan iyo jid dib u dhac. waxaynu ka soo gudubnay caqabado badan. caqabadaha aynu ka soo gudubnayna waa tan hadda guusheeda ay muuqato ee ah dalkeedii maanta in loo arkayo dal ka soo baxay burburkii iyo jabkii iyo qaranjabkii oo u soo gudbaya dal dhisan oo hay-adihiisi ay wada dhisan yihiin dastuurigaha intaynoo dhimanna oo inoo dhammaystirmi doona. haddii aan halkaa ku nuuxnuuxsado dowladdu waxay diyaar u tahay in sida ugu dhaqsaa badan doorasho loo sida ugu dhaqsaa badan 17 September heshiiskii waan haysanaa, 2 aqal ansixiyeen, 16 February guddigii farsamadana waan haysanaa. waxaan rajaynaynaa in wixii ka dhiman la dhamaystiro. guddida farsamada anugaa guddoomiye ahaa waxaanu soo qorshaynay ajendaha shirka. wuxuu socon doonaa 2 maalmood Isniinta iyo Talaadada. 2 maalmoodna waxay noqon doonaan in lagu ayido oo lagaga wada hadlo sida loo dardargelin lahaa loo ayidi lahaa 17 September iyo 16 February iyo madaxdu inay wada hadlaan oo ay sidii dalkani doorasho waadi lahaa oo wada hadlaan. waxaan rabnaa shacabka Soomaaliyeed inay dowladda ku kaalmeeyaan ducada iyo taageerada si aynu dalkani u noqdo dal qani ah oo shidaal leh oo barwaaqo ah oo maantaba soo dhacsaday oo xorriyadiisii iyo madaxbannaanidiisii ay meel fiican noqoto. dowladdu waxay diyaar u tahay wherever meel kasta ha ahaato xataa haddii la yidhahdo badda dhexdeeda kaalaya badda dhexdeeda waa imanaynaa si dalku doorasho waaya. haddii la yidhahdo badda dhexdeeda ha lagu shiro waxaan diyaar u nahay si dalku doorasho waado inaan lulino doorasho doorasho doorasho. waxaan rabaa inaan kusoo gebagabeeyo shirkayga jaraa'id kiiskii hayga. waa taqaanin kiis maxkamad ku jira lagama hadlo sababtoo ah waa maxkamad waa garna 2 qof kama wada qasbiso kama hadlayo. laakiin waxaan ka hadlayaa shalay warqad ka soo baxday dowladda aan jaarka nahay dariska nahay Kenya. warqaddu runtii waxay ahayd warqad aan ka turjumaynin ilbaxnimada dowladda. kiiska la isku hayo iyo waxa warqadda ku qornaa Ismaaciil ahay. waxaan xasuustay markaan warqadda akhrinayay iyo sida ay uga qaadatay
maxkamadda uga baaqatay dowladda Kenya nin odaya oo weynaaday oo cimriyey ayaa wuxuu arkay nin dhalinyaro ah oo tacab ku jiro beer falayo marka gabadh qurux badan oo naa u doonan tahay marka wuxuu rabay inuu gabadha ka qaado gabadhii weli ma guursan oo gabadh buu rabay inuu ka qaado marka si uu isu muujiyo in dhaqaalena haysta yahay nin indhabeel baa la odhan jiro indho wallo u ahaa indhihiisuna fiiqan yihiin gamuun buu geed ku soo taagay ama fallaar geedkii ku soo taagay ayuu wuxuu ku yidhi gabadhiisu uu isaga dhaadhiciyo inuu mid khatara yahay geedkaas waxa duntiisa ku taagan ma gamuun ku jabayba ma fallaar ku gananba ma atoor gadoodaa geesii mid kaga tegay bal geedkaa waxa ku yaalla sheeg dadkii waa isugu yimaadeen geedka halkaa ku yaalla yaa garanaya waxa ku yaalla isagaa ku soo muday moogta dabadeedna ina keena buu yidhi waxaan tusayaa inuu mid khatara yahay oo dafiiqaan wax kasta arkay intii ay sii socdeen baa soo intuu ka soo maqnaa hal geel ah baa geedkii iyo dadka dhexdoodii fadhiisatay gebgebtii iyo iswaalkii wuxuu guudka kaga dhacay hal fadhida gelgelisha oo ka sokaysa geedka sokadiisii hal weyn oo fadhida iyo dusha kaga dhacay ninkii lahaa gamuu geed ku yaallaan arka horta qoladii Kenya intaan maxkamaddiiba la gaarin waxay ku dhex dhaceen jidka dhexdiisa way tegi waayeen maxkamaddii hadallada elqaafa way ku tuureen innagu maxkamadda waa taageersannahay go-aankeedana waa taageersannahay wixii ka sababtay markaad kiiskaaga maxkamad geysato waa inaad aqbasho laakiin walaaladeen waxay diideen cadaaladii waxay diideen maxkamaddii caalamiga ahayd waxay ku doodeen in maxkamaddu aanay tixgelin 2009 heshiiskii dhacay warqadoodii shalay waa wada aqrideen qodobka saddexaad waxay yidhahdeen maxkamaddu ma tixgelin MOU-gii 2009 dhacay oo ay ahayd inaanu bannaanka ku hesho ay Soomaaliya aqbashay Soomaaliya ma aqbalin 2009 golaha shacabku iyo neero masli aqlabiyad bay ku diideen MOU aqlabiyad bay ku diideen heshiiska sidaa darteed waxaan u sheegaynaa dowladda Kenya Soomaaliya inaanay marna aqbalin heshiiska ay ku doodayaan ay leeyihiin maxkamadda ma tixgelin marka noo eego qodobkooda sax waxay nagu tilmaameen expansionist dad raba inay Kenya qabsadaan mid dad raba inay weeraraan mid waxaanu nahay dowlad nabadeed dal nabadeed dal jecel darisnadeed laakiin haddaanan intaa jeclayn maxkamadda ma nahay peacefully and according with justice in cadaalad iyo qaynuun lagu kala oo anigeedu ku lahaa ilbaxnimadu waxay ku jirtaa sharciga oo lagu kala waxay yidhahdeen annagu diyaar min warqadooda saasaan ku qornay annagoon diyaar ahayn baa nala gaaday qodobka 14 2016 hadda marayno 6 sannadood waxa lagu diyaarin waayey ma aqaan waxa lagu diyaarinayo 6 years haddaad ku diyaar garoobi waxaasoo dhan waxaanu arkaynaa dad aan cadaalad rabin laakiin annagu cadaalad baan rabnaa derisnimo wanaag baan rabnaa nabad baan rabnaa waxaan rabnaa in lagu kala baxo sharciga waxaananu ka warsugaynaa maxkamadda cadaaladda adduunka iyo go-aankeeda waxaan ku soo gabagabaynayaa waxaan rabaa halkan inaan uga diro salaan hambalyo iyo mahadnaq tiimkii difaacayay baddeenna ee joogay heeg ee hogaaminayay ra-iisul wasaare ku-xigeenka Mahdi Guuleed looyaradiis iyo xubnihii dowladda ka socday ee ka qayb galay ee aan nasan habeen iyo maalin ee soo jeeday ee u soo jeeday baxsashada xuquuqda Soomaaliya aad iyo aad baa u mahadsantihiin su-aalada wada furay aad baad u mahadsan tahay waa muqaadaro VOA laba su'aal baan haynaysaa masiixiinka arrinta doorashada gaar ahaan madaxweyne farmaajo xal casuumaad u dira laakiin partiishana horena loo casuumaadayaasha ka qayb galay shirka xaaladda joogeen yaa loo dira casuumaadda macnaheedu maxay yahay dadku way fahmi waayeen arrinta labaad oo guddigaasi dowladda gudoomiye u ahay waxaan ogeyn in wasaare guddi u ahaa baydan ku soo shireen warmeed soo gashay guddigaas xaggeesa lagu soo daray waa arrin fiican madaxweynuhu uu diray waxaan u malaynayaa 5 way yar tahay 5 casuumadood si xal loo gaaro si aan doorasho u qabsanno si dalkani hore ugu socdo 5 buu dirayaa madaxweynuhu 10 buu dirayaa 20 buu dirayaa shacabka Soomaaliyeed oo dhamina waxay markhaati ka yihiin in madaxweynuhu doorasho qabto laakiin isbahaysiga
doorasho diidku ay lagu hahayaan oo aanay doorasho rabin oo tartan rabin oo xalaal rabin waxaa kaloo cajiiba istaydyada doorashada maamulay madaxweynuhu doorasho ma maamulo puntland xildhibaanada ka soo baxaya madaxweyne maxamed cabdilaahi farmaajo wuxuu doora ku yeelan xildhibaanada ka soo baxaya jubbaland xildhibaanada 77 xildhibaan ee ka soo baxaya koonfur galbeed waxa la wax dowladda federaalka iyo madaxweynaha ka galay jira istaydyada iyo madaxdoodu iyagaa ka mas'uula amniga iyagaa ka mas'uula doorashada iyagaa ka mas'uula guddida doorashada xitaa iyagaa magacaabay ma naqaan sababta laakiin waxay inaga go'an in dalka doorashada dhacdo guddida waxaa guddoomiyihii guddida saalax xamed jaamac wasiirka dastuurka ayaa ku maqan safar caafimaad oo dalka turka markaa saasaan kusoo galay maadaama xagga federaalka ka soo wasiir magacaygu waa maxamed yaxya jiino waxaan ka socdaa warbaahinta nation dowladda sidaan ognahay go'aano isdaba jooga ayaa ka soo baxaya waxaa ugu dambeysay maamulka gobolka banaadir oo dadka u sheegay in lacag $5 laga qaadanayo haddii aysan xiran face maska hadda oo aan nala hadlaysana waxay noo sheegtay in digniinadaas iyo weli ay sii soconayaan inkastoo tan gobolka banaadir aysan dhaqan gelin wasiir marka hadda waxaan aragnaa adiga ku dhaada inaadan hadda face mask xirneen sidoo kale aadan gloveski aysan noo muuqan marka sidee dadka madax badan ayaa jira hadda xitaa aan kula hadlayna waxaa jooga dad aan halkan goobtan ku xirneen sidee marka dadka u qaadanayaan madaxda ugu qaadanayaan haddii aysan iyagu bilaabeen horta halka qalad baad ku noqotay waxayna daawanaya malaayiin qof inaan maas sitay waa wada arkayse laakiin codkaan bixin codkaan wuxuu noqdaa markaad maas ka xidhanahay codkaagii ma la fahmi therefore inaan hadda 2 mitirna waa inoo dhaxaysa aad baa mahadsantihiin jignaantaadana waad ku mahadsan tahay waana dadaalaynaa waa runtii go'aamo kasta oo soo baxa maamaha talyaani aad jirto tiraahdaa go'aanka iyo fulintiisa waxaa u dhaxaysa badweyntaasaan ku dabaalanaynaa runtii waan fulinaynaa badweyntaasaan ku dhex fulinaynaa waxaan rabnaa si dadku u badbaadaan in qof kasta uu nabad galo goobihii la kala fogaado afka la xido afsaarka lala taxadiro gacmaha lagu dadaalo gacmo dhaqista iyo nadaafadda dadka waaweyn ee guryaha inoo joogaan اوكي مدن وزير waxaan rabaa hal su'aal inaan ku weydiiyo 17 bishan waxaa ku ekaa xilliga loogu talagalay iskuulaadka waxbarashada goobaha waxbarasho in la furo haddana sidaan hadda maqlayno muddo kale lagu daray hadda aan ka maqlay marka imtixaanaadkii finalka iskuulaadka jaamacadihii xilliga imtixaanaadka la geli lahaana way soo dhawaadeen sidee ku suurta geli kartaa marka fasaxaas inay qaataan arrinta dareenka lagu dhalisay hadda idiin sheegay waxa weeye waxaan ku talagalaynay iskuulada weliba foorka iyo 8ka inaan hawshooda il gaara ku eegno sababtay sanadkii hore wadinka ogaa gobolka banaadir siday u saamaysay ardaydii wana damqaysaa dowlad ahaan in 7,800 arday dhacaan runtii waxay ahayd qalbi jab iyo waxaan la qaadan karin hadda waataan ka fikirayna waxaan rabnaa 2 asbuuc gudahooda inaan tallaabno macallimiinta markaan tallaabno waxay ku noqonayaan markaa shaqada waxaa kaloo dhici karta oo aan ka fikiraynaa kalaasyada 8 oo kale inay kala fogaadaan oo inta kalaasyada kala maqan yihiin mustaqbalka 8ka iyo foorka iskuulada inay iskuul sii bilaabaan yani dhinac kasta arrinta waan ka eegaynaa waan ka analyse garaynaynaa waana noo muuqata in la ilaaliyo ardayda in mustaqbalkooda mustaqbalkii ardayda oo la ilaalinayo iyo haddana waxaan ilaalinaynaa mustaqbalkii shacabku inay dhintaan ka labadaa dhexdooda between hard and rock waxaan ku jirnaa dhagax iyo dhadhaab dhexdooda ku jirna dowladdu waxa very interesting ilaa inta hadda shaqada ku jirtay dowladdu shaqadeena wada dowladdu waxay wadataa kiiskii badda inay dowladdu haddii la oran lahaa dowladdu iyo shaqayn maanta yaa badda inoogu maqnaan lahaa haddii la oran lahaa dowladdu iyo shaqayn sida dadka isbahaysiga doorashadiidka ay rabaan ilaahi dowladdu iyo shaqayn iyo abaaraha u gurmaday haddii la yiraahdo dowladdu iyo shaqayn yaa inoo qabanayo security iyo amniga iyo waxaan maalmo haddii aynu nidhaahno dowladdu iyo shaqayn madaxweynuhu iyo shaqayn yaa salariga askariga iyo shaqaalaha ogol inuu hal bil bilaamshaar noqdaa waa kuma waxaas oo dhan
iyo xukuumaddu u taagan tahay inay ka shaqayso on the other hand shaqadii doorashadana way u taagan tahay iskuma xidhnaan karaan inaan aad u dirto afgooye iyo ceelasha biyaha ama balcadan aad u dirto ciidan amniga suga haddii lasoo sheego in amnigu khatar yahay iyo in doorasho la aado wax alla wax iska galay amniga doorashada waa qodobka ugu muhiimsan doorashada amniga gada meeshuu khatar ka yahay noo sheeg wasiir wuxuu khatar ku yahay hadda soo ismahayna waxaa jooga shabaab baa joogta ka dagaalamaysa waxaa joogta xuduuddii oo aad ogeyd wixii ka dhacay ciidan subax keliya habeen dadkii lagu laayay carruurta ahaa wax boqolaal khatarood baa jira waxaan anigu isleeyahay dawladdu shaqadeedu way haysaa shaqadii loo dirtay bakool aan gaari dameer xataa raashin wada tagi karin ka waran wasiir oo ciidan waa tii la geeyey waa tii wufuudda wasiirada ay tageen khadiijo maxamed diriyaa ka soo laabatay waxa la geeyey adiga ogaa inta baabuura tagtay maalintii dhaweytay waxaasoo dhan waa shaqada laakiin iskuma furno inuu gaarigii xamar ka baxin halka isteega mati horta tii ugu horreysay baan ku guulaysanay waa inaan konton baabuur oo raashin wada aan geyno khataraha ku weegaarsan waan ognahay dalkani xaalad dagaal baa jira haddaan xaaladda dagaalka aynaan wada qaadan oo aan dhegaysano dad doorasho diid ah maxay noqonaysaa mar rabno tahay inaan dhegaysano wasiir wallaahi anigu dalkan inuu badbaadsan yahay baan noo aragnaa shacabka soomaaliyeed oo dhamana adiga ogaa sida falceliskay ka sameeyeen iyo sida ay u naxeen waxay xasuusteen isbahaysiyo iyo badbaadooyin dalkan god dheer ku xurmo badan iyo karaamo badan baan u haynaa madaxda madaxweynayaashii reer dalka waxay mudan yihiin stageka uu ku sarreeya weligaa maad maqashay aadan cadda wax laga sheegaya ama cabdixaasin wax laga sheegay madaxweyne wuxuu leeyahay hore maamuus la yaab laakiin ma rabno in isbahaysiyo doorashadeeda aanu ku dhex aragno madaxdayda ma rabno inaan ku aragno meelo la yaacyaacayo madaxdayda hore waxaanu rabnaa madaxdayda hore in laga barakaysto oo ay fadhiistaan meel oo la ixtiraamo madaxweyne kastana saasaan rabnaa inuu mustaqbalkiisu noqdo wasiir waa wasiir waxaan u arkayaa wax aan inoo cuntamaynin madaxweynayaasha isteedyadu taladiiba iyagaa gacanta haya doorashadii amnigii siyaasaddii sababaad markaa way joogaan isteedyadii kale isteedyada haddaan ka imid madaxweynihii hirshabeelle cali guudulaawe haddaan ka imid wuxuu arkayaa in dalka doorasho ka dhacdo wuxuu sugaya amniga wuxuu ka fekerayo cali guudlaawe ka shaqaynayay fatahaadaha guga soo socda ayuu hadda ka shaqaynayay waxaan rabnaa madaxweyneyaal state oo ka shaqaynaya wixii loo doono wasiir waa Shabeelle TV dawladdu intii gobolka Gadir ciidamo geyn lahayd soo kama habooneen in gobolada Bay iyo Bakool iyo Xudur iyo oo intaas sano go'doonsan in ciidamo loo dadgureeyo si ammaanka ay u sugaan geedo mataqaanada dalka ku tahay Soomaaliya ku taala Thank you very much.